walaalle waa imisaad bahasha siinaysaa hadday inantu tidhaahdo iyo hadday tidhaahdo braalkan imisaa la siiyaa labaduba waa laba eray oo isku intiiya laakiin sida loo yidhi ayaa kala gedisan raggu inuu xishoodo habluhuna xishoodaa in la dhowrsanaadaa siiba ninka dhallinyaradii inuu dhowrsanaadaa waa waxyaabaha ugu waaweyn ee diinteennu ku dhawaaqayso in la dhowrsanaadana wax qofka ku kaalmeeyaa jira oo shareecadu ina fartay waxaa ka mid ah alxayaa xishoodka raggu inuu xishoodo habluhuna xishoodaan waxaa ka mid ah inaan la ysku dhex darin rag iyo dumarka ee laba mujtamacoo kala soocan intay noqon karaanba inay noqdaan waxaa ka mid ah inaan sheekada la badin oo dhallinyaradu waa nuxnux badantay telefoonnadan iyo waxaan laga hadlaya baabkan in la yska dhaafo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah haddiiba laysu baahdoo la hadlo waxbaa la kala iibsanaya ama waxbaa la isweydiinaya ilahay wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl hadalka ha hadlina lama odhan dumarow rag iyo dumar ma wada hadli karaan lama odhan laakiin waxaa la yidhi maxay falaa takhdacna hadalka ha jajabinina oo jajabisku innagoo isku wax sheegayna ayaa waxa la sheegaya kala hunguriyey walaalle waa imisaad bahasha siinaysaa hadday inantu tidhaahdo iyo hadday tidhaahdo braalkan imisaa la siiyaa labaduba waa laba eray oo isku intiiya laakiin sida loo yidhi ayaa kala gedisan ilaahay wuxuu leeyay falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jajabinina hoos wax hunguri ka keena ninka wax waloo gabadha ka midiba sanqadheeda baynu nidhi ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamayaa qur-aanku muxuu sheegaya fii suurati nuur walaa yadribna biarjulihinna liyuclama ma cagahayay dhulka ku tumin baa la yidhi oo cagatunkaasi raggu soo jeediyaa gabadhu qudhubqudhubteedu ragga way soo jeedisaa ilaahay baa wuxuu leeyahay dumarku yay cagaha dhulka ku tumin idan waxaynu leenahay haddii la rabo alcifa haddii la rabo dhaqan islaam waa inuu meesha yimaadaa waalidka waxaan leenahay intaynu hablaha dawaarmarin lahayn xishmada iyo dhaqanka islaamku uu baray aan barro oo ah inaynu inamada iyo hablaha kala soocno oo ah inay xijaabato asturkeeda qaadato oo ah caqiide iyo diin iyo aakhiro iyo wax dhowri karo qofkanoo xejin kara oo xisaam u ah inaynu barro oo qofkani uu naar ka fakero iyo janno iyo sharaftidiisa iyo magaciisa uu ka fakeri karo haddii akhlaaqdu ay qaabkaa u dhisanto oo bulshada akhlaaqdeeda la dhiso oo laga joojiyo tviyada iyo qurunka iyo raadiyoyada iyo waxaan laga wado naagahan islulaya hooyooyin islulaya ku jira maaha inan yar yacnii dhaqanku markuu xumaado xumaha marka dambe wanaag noqda ma ka hadlayo qofku inuu gabay tiriyo ama hees tiriyo ama caynkan waa adab waa luqa waa la tirin karaa laakiin tan la wadee muusiga loo tumay horta hiddiya dhaqanka kuma jirto hiddiya dhaqan soomaaliyeed oo muusigi ma jiro haddii lagu yidhaha hiddiya dhaqan baa la noolanaya hiddiya dhaqan gaaleed weeyaan muusigu soomaali gaalkii ingiriisiya intii la socotaa bigil iyo waxa la tumaba ugu horraysay sacabkeeday tumi jirtay iyo cagahay dhulku garaaci jirtay ma jirin wax la tumaa idan dhaqanna umaahe waa dhaqan gaaleed hiddana umaahe waa hiddo cid kale leedaho hiddo muslim maaha waxaa habboon in bulshada muslimka maamulka iyo dowladda waayeelka iyo dadka mas-uulka ah macallimiinta iyo dadka iskuullada jooga in xishmada iyo xayaaga dib loo nooleeyo haddii la rabo inay dumarkuna cafiifaad noqdaan ragguna uu cafiif noqdo aabba waliba wuu jecel yahay inantiisu inay dhowrsanaato aabba waliba inankiisu inuu dhowrsanaadiyo inantiisu uu jecel yahay laakiin haddana waddadii lama hayo waddo kalaynu ku raadacaynayna maaha in gaala intay inoo timaaddo maalin walba khitaan fircawni baa wax xumeeya iyo ceebti waxay gaadhay in culammadeenna loogu yeedho inay ka hadlaan uun dumarka hoostooda iyo halkaas iyo hay-adii waddo $10 lagu bixiyo ma aha waxaan leenahay gaalow iska ta khitaanka fircooniga adigu kaa yimi isagaa xisaamkan iyo waxaan wata iyo fircoon iyo waxaan oo dhan islaamkeenna haddaynu u noqonnaa waxaan oo dhammi baaba'aya
xishmadii iyo dhaqankii iyo xayaagii iyo dadnimadii inuu soo noqdo islaamnimadeenni inaynu dib ugu noqonno dhallinyaroo idinkuna si u dhowrsanaataan kow musiiraadka ka baxa musiiraadku waa laba musiiraad khaarijiya waxaa qofka kiciya qofka bini aadamka ahi meel hadduu gaadhaa jirta ee khatarta inuu soo noqda waa meelaha nebi yuusuf iyo maxaa la yidhahdaa ninkaa godku uu ku dumay iyo jurayj iyo nimankaan iyagu meesha khatarta intay gaadheen bay haddana dhowrsanaadeen si laynoogu tilmaamo aakhire inaad daliil helaynin laakiin innaga sharcigu wuxuu ina faray meesha inaynan gaadhin marka hore meel ka horraysa ku joogsanno oo ah ishaada laabo waxba haweenka ha sii eegeegi oo ah inan tahay xishood oo ah inan kow xishood oo ah isku dhex darsamina waxaan oo dhammi waxay xisaam u yihiin waxay teed u yihiin in wixii ugu dambeeyo zine uu dhaco waa cifatu lisaan iyo samci iyo basar ilaahay qur-aanku ina faraya inaynu isheenna dhowro si aynu cafiifnimada u gaadhno idan musiiraadka khaarijiga ah oo xawaasteenna shantaa inaynu ilaalinno waa kow dharka iyo maryahaynu xidhanayno inaynu ilaalinno ragguna maryagaaleedkan tirada badan le in la yska daayo maryagaaleedku xad baynu gaadhsiisannahay inaad aragto qof salaad tukanayo dabadu qaawantay masaajidda balidinku gala safka kaa horreeya inanka ku tukanayo dabadiisa kuu muuqanaysa waa ceeb salaadina sixi mayso laakiin gaal baa inoo soo tolayoo maalinba mooduu tolaa mid dabada laga xidho mid candhada hoosteeda laga xidho mid bawdyaha laga xidho waa dhar gaal waxay ahayd ama inaynu dhar muslim soo tolno ama dawarwalaheenni aynu u tagno inuu dhar ka tula jirno tolanno libaaska habluu qaadanayaan iyo ka inamadu qaadanayaan labaduba dhar muslim inuu noqdo dhar cawrada astura oo aan ku dhejisnayn oo fool xumayn waxaynu u baahannay marka waxaasi waa musiiraadkii khaarijiga ahaa musiiraadka nafsigaana inaad iska dayso oo ah dhallinyaradu waxay u baahan tahay dad camaliyiin oo mashquula inay noqdaan haddaad enerjigaaga isticmaasho dumarka iyo waxanba waad ilaabaysa haddiise enerjigu intuu kugu kaydsamo maantao dhan aad maqaaxi fadhido sheekaynayso aanad waxba qabanin cunnana aad dibirtay fiidka markaad tagto guriga sawirraa indhahaaga hor yaacyaacya aan jirin riyadaa kugu badan laakiin waxaasoo dhamma waxay ka yimaadeen camalla'ida qofkan sida neefka xoolaa waxna cunaya beerkana u jiibsanaya waxaad u baahan tahay kow inaad shaqo samaysato wax akhriso wax taalaco wax baro xoogso wax qabo xataa cayaar tag inanka galabta kubadda soo cayaaree dee isna aan salaadu ka tegin caawa meel la qaban maayo iska seexanaya u daallayihi socankaa maaha inanka basketball soo tuurtuuray caawa isna meel la qaban maayo enerjigaagii baad wax kale ku isticmaashay ninka intuu meel fadhiistay 3 saacadood buug akhrinayay waa daallanyo wuu seexanaya haddaad si enerjigaaga isticmaali weydo uu kugu kaydsamo fiidkaad sheeka bilaabiyo heblaayo la hadal iyo xaggan ka boodiyo meeshan ka bood idan kow dhallinyaro haddaad rabtaan firaaqa ka baxa firaaqu waa dadku dilaa qof cimrigiisii wuxuu ku qabta garan waaye waa ceeb cimrigu waa nicma alla ku siiyey haddaad nicmada garanba weydo waxaad ku samayso aad tidhaha maxaynu ku dillaa wakhtiga waa ceeb firaaqaasi waa musiiraadka daakhiligaa buu ka mid yihi firaaqu markuu kugu tiro bato cunnadu kugu tiro badato hadday dee cunnadu kugu tiro badatona iyada iska yaree baa lagu yidhi xataa yo maxay samee soom baa lagu yidhi nin gaajoonaya dumarka ma fekero marka la dhergo ayaa dumarka laga fekeraa idan haddaad soontana waxaan waad ilaabaysaa nebigu wuxuu uhi war dhallinyaroy guursada haddaad taa awoodi weydaan dariiqa kale idiin furane waa maxay buu nebigu leeyahy dee waa sooma dhallinyaro soonkiinu hadduu noqdo bil ka bil ramadaantuunbaad sugtaan soo maaha inta alla waafajiya ee ragga ay waa inta ramadaanta soonta laakiin waxaa laynoo banneeyey inaynu khamiis soonno oo isniin soonno oo ayaamulbiidka soonno oo maalmo tiro badan oo sunana oo soo arooray soonno waxaasoo dhammi waxa weeyaan litarbiyati alanfus in laynugu rabeeyo ugu dambayn hadday dhallinyaradu dhowrsanaato waxay noqonaysaa bulsho qurux badan baa dhalanaysa oo rag iyo dumarba dhowrsoon
oo zina iyo xanuunada faafiya qurunkoo dhammi ka baxay oo cibaado iyo wax soo saar iyo mashquul wax kale ku ah. waxaan ku soo koobayaa markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma innii as'aluka waxaa uu nebigu ku ducaysanayay allahuma innii as'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina. dhowrsooni buu ilaahay weydiisanayay badiya inaa ilaahay subxaanah wa tacaala dhowrsooni weydiisataan. nebigii alla dhowray ayaa haddana ilaahay dhowrsooni weydiisanaya. idan dhowrsoonidu waa mujaahada baynu leenahay, waa wax dadaal u baahan oo baryo aad ku kabto ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa aad ku kabta buu u baahan yahay. bulshadii dhowrsoonidu ku badataana khayrkaa ku bata. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacaala inuu annaganana dhowro, idinkana uu idin dhowro, dadka muslimiinta oo dhanna diintooda uu dib ugu celiyay say u dhowrsamaan.